بسم الله الرحمن الرحيم سو دhowaada saaxiibayaal sidii caadiga ahayd casharadii imtixaanaha ahaa ee dhawaanaha noo soo socday ee aan kaga sheekeynayno suuqan sarifka lacagaha qalaad ayaa waxaan ku jirnay qaybihii candlestickska taas oo aan ku soo sheegnay in ay yihiin 10 nooc oo aan 3 nooc oo kamid ah candlestickska hore aan ku soo qaadanay hadduu ilaahay yiraahdana 2 nooc oo kamid ah candlestickyadaas aan maanta qaadan doonaa ujeedka ugu weyn ee candlestickskan xoog u saarayna waxay tahay in qofka uu fahmo muhiimadda uu leeyahay candlestickka si uu ugu shaqeysto suuqan maadaama aad tahay xirfadle raba suuqan inuu horumar ka gaaro mustaqbal uu ka dhigto isla markaasna si meeshii aad ka shaqeysanaysa ama waxa adiga aad ka mid tahay waxaa fiican marka in aad ka heshid xog badan su'aal ahaan haddii aad siyaasi tahay ama waddan madaxweyne ama xil aad ka haysid waxaa mar walba fiican siyaasadda waddanka gudihiisa iyo wadamada hareerahaada inaad mar walba la socotid wixii waddanka kusoo siyaaday iyo wixii markaas imaan karo dadka kula tartamaya noocyada yihiin waxyaabaha ay doorashada ku galaan si markaas wax ka duwanaa ula timaada marka suuqaana anaga aan joogno ee sarifka lacagaha qalaad waa qayb ka mid ah marka nolosha ee la rabo qofka inuu si dhaba wax xaqiiqa ula socdo muhiimadda ma aha in kandala kalar kala duwan aa aragtid micnaheeda marna suuqa aa hoos u raacdid marna aa bay u raacdid laakiin u xaqiiqsatid in ay tahay waxaan lacagtaadii dhabta ahay oo marna jiha baya aadayso marna jiha sel aadayso okay saas darteeda marka waxaan bilaabnay taxane ah casharada aan ugu sheekeynayno candlestickska oo 3 qayb hore iyo 2 qayb oo noqonaya 5 qaybood haddii 5taasi hordhaca ah aad sii baratid oo xoog aad saartid ee markii la gaaro suuqa ama aad joogtid trading view-ga ee meesha suuqa laga taxliiliyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee marka kandhalada indhaxda ay ku soo dhacaan la rabo in aad suuqaasi fahmi kartid ayaan rajeynaa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo marka aan dhamaysano candlestickyadan tusaalaha hadda hortiina ka muuqda cashirkan waxaan hordhac yar uga soo dhigay sawir yar oo candlesticks aan soo saaray candlestickyadan si fiican marka aad u aragtid haddii aad baratid noocyadooda iyo siday u kala baxaan ee sida suuqa ay wada saameyn ugu leeyihiin waxaan rajeynayaa in wax badan oo isbeddel aad ka baran doontid hadduu ilaahay yiraahdo okay taxanii candlestickska ee noo soo socday waxaan hore u soo qaadanay 3 nooc oo ka mid ah taxanaha 10ka candlestick waxaana sidoo kale maanta aan qaadan doonaa 2 kale oo ka mid ah noocyada suuqa dhaqaajiya ama jihada suuqa bedela iyo magacyadooda hadduu alla yiraahdo tusaale waxaa hortiina ka muuqda nooca ugu horeeya ee aan rabno inaan ogaano hadduu ilaahay yiraahdo sida uu suuqa uga samaysmo iyo magaca uu leeyahay tusaalaha sawirkan hortaada ka muuqda haddii si fiican aad u fiiriso sawirkan waxaa arkaysaa 2 xariijin oo ah support line iyo resistance line oo hoosteedana midda koowaad ay ku qoran tahay hammer iyo qaybta kore ay ku qoran tahay hanging man oo ah qayb ka mid ah noocyada candlestick aan rabno hadduu ilaahay yiraahdo inaan caawo inta ku falanqeyno insha Allah tusaalaha hortiina ka muuqda marka magacyada labadan candle ee loo kala yaqaano hammer iyo hanging man tusaalahan haddaa si fiican indhahaada u kala furtido fiirisid qaybta hoose ee nooca xariijinta supportiga waxaa yaala shumac ku tusaya in awoodii suuqa ay ku lahaayeen sellerska ay sii dhammaatay oo dibna loo soo celiyey markii uu kandhalkan uu buuxsamay meeshaana ay ka bilaaban rabto fursad cusub taasoo la rabo marka qofka yaqaana kandhalkan iyo magaciisa iyo sababta uu ku yimaaday in ay meeshaan ka bannaan tahay fursad ah isla sidoo kaleeto qaybta kore waxaa ku yaala asna hanging man oo ah candle u samaysma qaab noocan ah jir ahaantiisana aad u yar xariijintan dheer aan soo baranay marka suuqa la joogana loo yaqaano shadowga ay aad uga weyn tahay jirka shumaca intiisa kaleeto markaas saan u aragtid marka haddii tusaalahan hamarka inta lagaa siiyey ee lagu dhahay suuqan marka qaab noocan ah oo weliba uu ka yimaado qayb kore oo ah downtrend supportigaaga markuu ku soo dhaco haddii uu samaysto xariijinta noocan ama qaabka noocan ah waxaa ogaanaysaa markaasi aad dareemaysaa inuu suuqa wado fariin buy ah isla dhinaceeda kale marka suuq markii inta uu joogo areadan markaa si fiican u fiirisid waa area aad u adag support adag resistance adag oo suuqa uu ka sameeyey iska caabin oo in badan intana u jeedid sida koowaad in mar laga soo celiyey qaybta labaad oo sidoo kale mar labaad laga soo celiyey iyo markii saddexaad oo hadda ah haddii marka 3dan xaqiijimood ay ku kulmaan oo intana uu ku yaalo shumac ah hanging man
oo ku tusaya fariin ah suuqii in ku harin wax badan oo buyers ah awoodii buyerskiina ay dhammaatay. waxaa laga rabaa marka inaad fahantid suuqa inay kasoo socoto fursad sell ah ama suuq hoose. tusaalaha hordhaca inaad si fiican u fahanteen rajeyna insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo. waxaan rabnaa marka nooca ugu horeeya caawa inaan ka hadalno waa hammer iyo hanging man. labadan nooc waa laba nooc oo shumace ah suuqan forexka markii la joogana in badan aad ugu soo noqnoqda. okay, hammer iyo hanging man labadaas magac in si fiican aad u baratid waxay kaa caawin doontaa muuqaalkooda iyo magacoodaba in suuqan aad wax badan ka fahantid hadduu ilaahay yiraahdo. fariimaha ay ku sidaan marka aad baratidna haddii ilaahay yiraahdo lacag badan oo suuqana aad ku faa'iidid ama aad ku aflaxda aad kaga shaqaysan doonto hadduu ilaahay yiraahdo. qaybtan marka waxaan ku soo qaatay sidii caadiga ahayd ee taxanaheennii black and white ka ahay ama madowga caddaanka asagoo ah selna waa kana asagoo ahna muxuu ahaa isheeg buyna waa kana. si aad u fahantid marka waxaan qaybta midignii soo dhigay iyadoo leh color taasoo ku tusayso suuqan markaa si fiican u fiirisid qaybta hammerka markaad joogtid. suuqan waxa uu ka yimid qayb kore waxa u socda hoos. suuqa marka la joogana waxaa loo yaqaanaa qaab noocaana markuu u samaysmo downtrend inuu yahay oo suuq jiha hoos u socdo. okay, downtrendkan marka aad joogtid haddii aad heshid candle hammer ah ee qaabka noocana u samaysmay jirkiisana uu aad u yaryahay xariijinta suuqana ee loo yaqaano shadowga ay ka dheer tahay ama ay kusoo laabanto ama ay ku saddex laabanto marka loo fiiriyo jirka suuqa waxay kaa caawinaysaa in meeshaan aad ka fahantid fariin ah in suuqa uu aadi rabo jiha buy ah oo inta waxaa ku sawiran ujeedaa hadda akhriska taqaanid buy signal oo ah fursad galasho in inta laga tusay. isla sidii oo kaleeto qaybta labaad ee ayadana loo yaqaano hanging manka waa nooc ka mid ah noocyada shumacyada 10ka ayaan rabno inaan baranno hadduu ilaahay yiraahdo. wuxuuna yimaadaa badanaa uptrend kadib oo ah micnaheeda suuq ku soo socday jiha kore korkiisa korena uu ka soo baxay candle hanging man ah oo kuna sheegaysa in suuqii buyerskii awoodoodii ay sii daciifayso oo awoodii suuqana la rabo in ay la wareegaan sellerska. sidee ku fahmi kartaa marka candleka noocan ah sidaan kasoo sheekeynay ee qaabkan u samaysmay ee loo yaqaano hanging man markiisii hore wuxuu ahay candle buy ah. isagoo buy ah marka la soo celiyo ee ay sellerskii suuqa ay soo celiyaan waad dareemi kartaa in ay meeshaan kaaga banaan tahay fursad ah sell signal ama fariin ku tusaysa in suuqaasi jihadii uu bedel rabo. okay, hammerka waxaan dhahan wuxuu ku yimaadaa downtrend oo suuqa hoose oo area support ah. marka suuqa korka yimaado ee uu hoos joogo wuxuu noo joogaa meel support ah kadibna suuqaasi la raba in kor loo wado. okay, sidoo kalena hanging mankan waxaan soo dhahan wuxuu ku yimaadaa suuq uptrend ah oo kor u socda kadibna haddii aad aragtid fursadan hanging man ay rabto ama ay dhici doonto suuqaasi in hoos loo soo celiyo. rajeyna inaa hammer iyo hanging si fiican u fahanteen ama wax uun macluumaad ah ka haysatiin. okay, waa soo kala qaadnay marka iyagoo iswatay ahaayeen. hammer candle wuxuu yimaadaa suuq downtrend ahaa oo yimid support adag kadibna waxaad u diyaar garowdaa isbedel ah in suuqa kor loo celiyo taas oo loo yaqaano markii la joogo suuqan forexka bullish reversal candle oo ah micnaheeda dib u laabasho ama suuqa in la celiyo. waana candle buy kuu sheegaya inuu suuqa aadi doono fursadaada kale ku darso diyaar garowna muuji taasoo micnaheeda ah taxliilintaada kaleeto iyo farsamooyinkii kale aad soo baratay ee suuqan loogu shaqaysanayana ku darso. inta badanna waxaa dhacda candlekan markii uu samaysmayo ama uu samaysmo wuxuu ka dhacaa meelaha supportiga iyo resistancega ah. sidoo kale waa kasoo sheekeynay meel ku ahayd resistance ayaa marmarka qaar isku bedeli karta support. meel sidoo kaleeto ayadana support ku ahayd ayaa waxay noqon kartaa ayadana sidoo kaleeto resistance. okay, shumaca marka hammerka markaan joogno kalimadan hammer waa kalimad af English ah waaye mana adka waa buruska loo yaqaana hammer. macna ahaana marka suuqan anaga aan ka shaqaysana ee forex la joogana waxaa loo yaqaanaa candleka hammerka ah
ku yimaada suuq hoos u soo socda ee downtrend ahay haddii inta uu kaa siiyo fursad ah hammer candle in la rabo inaad fahantid meeshaasi inay fursad aad weyn kaaga baran tahay good dhinaca kale xataa waxaa ku siyaala sawir kaloo asagana extra ah oo ku siinaya macluumaad ku saabsan hammerka iyo hanging manka oo aan qaybta hore usoo sheekeynay okay qaybteena kale ku xigta marka aan fiirino meesha ugu soo sheekeynay marka hammerka qaybtaan waxaan rabnaa marka hanging manka ama hanging manka inaan ugu sheekeyno okay hanging man candle waxa uu ku tusinayaa in suuqa ay ka dhamaadeen buyerska iibsadayaasha suuqana uu jihada u bedelan doono waxa uuna inta badan ka dhacaa area resistance adag ah haddii qiimaha hoos u socdo kadibna uu yimaado candlekan waxa ay ku tusinaysaa in qiimaha uu kor aadi doono okay hanging man marka waa kana awoodiya marka waxaa sii dhamaatay buyerska oo suuqiisa hadda hore qaybta hore ugu soo sheekeynay buyerska awood badan suuqi kuma laha tusaale ahaan usoo qaadanay waxay ahayd in suuqan ay tahay meeshii dhan ganacsigaaga ahayd ee aad ka shaqaysanaysay ee qutulyoonkaaga ama noloshaada aad ka soo saaranaysay maadaama ay saas tahay marka waxaan dhahay waxaa qasab ah in qofka uu yaqaano meesha uu ku sugan yahay iyo marxaladeeda iyo waxa ka dhacaya oo taasoo ah sida caadiga ah markaa meel degan tahay in aad la socotid deegaankaasi xaaladaha imaan karo wixii markaas kusoo ziyaado akhbaartana aad la socotid taas macnaheeda marka suuqan marka la joogana information noocaas ah inaad u fahantid kandhaladan kuu soo baxaya iyo fariinta ay wadaan haddii marka suuqan aa aragtay labadan bay markay soo baxday haddaa dhahdan suuqan wallahi maasha allah waa shidan yahay buyers fiican socdo haddii lacagtii aan haysto dhan aan geliyo ee suuqiina liigu soo celiyo ka hor jaa noocaan ah oo qaab noocaan ah taas macnaheeda marka waxay tahay qofka in uusan aqoonba u lahayn kandhalada samaysmaayo ee uu yahay qof iska hawaraac ah ama markaas wixii cagaar ama guduud meesha ka muuqda uu dabaraaco taasoo kuu keeni karta in marna aad ku khasaartid marna aad ku faa'iidid laakiin waxaa hubaal ah ama la hubaa in inta badan ay khasaaradaada ay badan doonto okay sidoo kale marka labada nooc ee kaleeto aan rabna ayagana waa inverted hammer iyo shooting star qaybtii hore aan kasoo sheekeynayna waxay ahayd hammer iyo hanging man oo ah laba nooc oo noocna suuqa downtrend looga helo nooc kalena suuqa uu ka yimaado uptrend okay qaybta kaleete aan rabno marka ayadana waxaa la yidhaahdaa inverted hammer iyo shooting star labadan shumacna waa laba shumac oo ayagana aad iyo aad iyo aad suuqa muhiim uga ah okay tusaalaha marka tusaale kugu filan haddii aad si fiican ugu fiirsato sawirkan mar walba wixii aan ka sheekeynayno marka waxaan go'aan ahaan aniga ila ficnaatay in aan sawir markaasi ka sheekeynayo wixii aan ka hadlaynay aan hortiina soo dhigo si aad u aragtiin suuqan markii uu samaysanayo shooting star ama inverted hammer wax loo yaqaano ama candle-kuu doona ha noqday markii uu kasoo muuqdo shaashada hortaada ah in aad fahmi kartid candle-kan inuu magaciisa yahay noocaas calaamada noocaas uu sameynayo hadduu buy uu yahay hadduu sell uu yahayna macluumaad kugu filan ka heshid okay sawirkan hortiina ka muuqda waa tusaale kooban oo aan ugu talagalay in aad u fahantid haddii candle inta kaaga soo baxay areadan ee ah resistancyga shooting star haddii aad ka heshid in macnaheeda ay tahay suuqa in hoos loo celin doono isla sidoo kaleeto waxaa intay ku yaala marka inverted hammer oo asna kuu sheegaya in kow jihada suuqa meesha uu jooga ay tahay meel adag oo support ah kadibna waxaa heshay candle stick inverted hammer ah waxaa la rabaa marka in aad suuqa fahantid in isbedel markaasi uu dhici rabo okay tusaalahaasna intaas aan ugu gudubno marka inverted hammer marka ku bilaabeynaa inverted hammer candle waxa uu ku siinayaa fariin buy ama gadasho ah haddii inverted hammer aa aragtid marka kala duwanaanshiyaha inverted hammer iyo shooting star ayaa ah jihada uu suuqa markaasi ku jiro downtrend ama uptrend inta badan jirarkooda aad ayuu u yaryahay xariijin dheer ayuu kusoo laabmaysa jirka shumaca ayuu samaystaa tusaale ahaan marka jirka uu shumaca ku fadhiyo marka la fiiriyo iyo xariijinta waxaa ka badan xariijinta oo haddii jirkaasi la qaybin lahaa 2 ilaa 3 mar ayay kusoo noqon lahayd
markii aad joogtid shumacaan. Okay, tusaalihii hore aan kusoo qaadanay mid lamid ah inta noo yaala oo asla ayadana ku siinaya fariin ah shooting star oo noocan u samaysma xariijin ahaan kan dhalkaa markaa fiirisid wuxuu ku tusaa muxuu ahaa ii sheeg inuu cagsi ku yahay kan dhaladii kale hore aan soo baranay. hana isku qaldin sababtoo ah kan xariijintiisa iyo qaabka uu u samaysmaayo kan dhaladii hore ee aan soo baranayna way kala duwan yihiin. tusaale ahaan kan waa inverted hammer. qaybtan hadda markaa fiirisid hammerkan uu ku siinaya fariinta by signal ah. marka xariijinta hadda inta ii imaan lahayd oo qaybtan caatada ah ee kormari lahayd ama haddaan wareejiyo dhinac kale u wareejiyo maxaa iman lahaa inverted hammer. haddii inverted hammerkana lasoo toosiyo oo qaabkan loo dhigo maxaa iman lahaa hammerka caadiga ahaa. marka hammer haddii inverted laga hormariyo u fahan in uu yahay shumac hoose ama jir hoose ku bilaabanayo. hammerkii caadiga aan naqiinayna laga soo bedelay. tusaale ahaan fiiri hammerkan hore si fiican haddaa ugu noqotid waa hammer buuxiyey qaybta kore. inverted hammerna waxa uu buuxiyey qaybtii muxuu ahaa ii sheeg hoose. magacyo ahaanna waxay kala wataanaan dhahnay inverted hammer iyo shooting star. good. okay, waa maxay marka shooting star candle-ka muxuu yahay asagana? shooting star candle waxa uu inoo sheegayaa fariin ah in suuqa uu noqon doono iska iibin ama sell. waxa uuna sidoo kaleeto ka dhacaa meelaha resistansiga adag ee suuqa, waxayna cagsi ku tahay hammerkii hore aan kasoo sheekeynay oo hoos loo jeediyey. si fiican ugu fiirso inta badan fariimaha ay sidaan shumacyada suuqan waa ku muhiim oo sababtoo ah haddii aad tahay ganacsade dhab ah suuqan marka aad rabtid inaad xaaladiisa si guud iyo si gaar ah u ogaatid waxaa muhiim ah in badan aad ku noqnoqotid meelaha laga sameeyo technical analysiska, taasoo kaa caawin karta in aad noqotid xirfadyahan dhammaystiran ama suuqa wax badan oo badan ka fahmay. tusaale marka hadda inta aan kasoo sheekeynay inverted hammer, shooting star, hammer, hanging man, intoodaba marka aad macluumaad ahaan u heshid iyo sawiro yaroo kooban uma filnaan doonto. haddii maanta aan kaaga sheekeeyo micnaheeda beri iyo beri iyo beri dambe haddaada kusii celcelinin isbuuca dambe ama isbuuca soo socdo waxaa laga yaabaa inay maskaxdaada ka baxaan. taasna micnaheeda marka ma tihid xaqiiqda marka laga hadlo qof u diyaarsan suuqan in uu ka shaqaysto ama uu ay noqoto xirfadii uu noloshiisa ku maareyn lahaa. si markaa u noqotid ganacsade xirfadda noloshiisa ku filan ama maareynta noloshiisa si fiican ugu guulaysto waxaa u baahan tahay in badan in aad suuqan waqti siisid, in aad hor fadhiisid, in aad baratid, taasoo marka dambena sabab u noqon doonta in suuqan guul aad ka gaartid adigoo muxuu ahaa ii sheeg dhibaatadii iyo silicii hore aad soo martay bedelkeedana gadaal ka dheefsan doono. taasoo micnaheeda soomaalida waxay dhahdaa waxaan lagu tiri tacab beelin laguma faa'iido. okay, intaas haddaan kaga gudubno marka qaybtii gunaanadkii waxaan soo gaarnay qaybteenii 7 hadduu ilaahay yiraahdo. marka waxaan rajaynayaa in daqiiqadaha naga dhici rabaan kadib waxaan sameynaa waa jaraa oo kusoo noqonaynaa si hadduu ilaahay yiraahdo aan dulmar kooban ugu noqono si idinkana u fahantiin. waxaan u soo koobayna waxay tahay in shumacyadu aysan idinku badan. shumacyo waxaa jira 1 isku raaca, shumacyo 2 isku raaca, shumacyo 3 isku raaca. weli hadda afka horaan joognaa oo muxuu ahaa ii sheeg shumacyadii hordhaca ahaay ee kelikeliga noo socdo. waxaa sidoo kale imaan doona shumacyo 2 isku raaca iyo kuwo 3 isku raaca. intoodana markay ku kulmaan inta kale kasoo hartay suuqa ku jirta waxaan rajaynayaa insha allah hadduu ilaahay yiraahdo in aad wax badan ka faa'iidi doontaan hadduu allah awood la yiraahdo insha allah. qaybtayna marka 7 intaasaan kusoo gabagabeynaynaa insha allah. waxaan sameynaynaa marka linkiga labaad markaa idiin soo daro insha allah hadduu ilaahay yiraahdo soo gala. wixii falanqeyn iyo su'aalo iyo wixii fahan guud ahna insha allah markaasaan sii dhammaystirinaa. aad u mahadsantiin.